بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قرين waxaan rabaa inaan halkan uga mahadceliyo bahda warbaahinta oo runtii waqti aad u fara badan oo qaali ah galiyay qaban qaabadii shirweynaha ururka SDSI mudadii la soo qaban qaabinayay iyo qabsoomidiisina runtii waqti fara badan ka qaatay aad baan mahad balaaran mar labaad ugu celinayaa haddaan wax yar taariikhda dib ugu laabto sida la socotaan ururka SDSI 2 sano ka hor baa waxa lagu aasaasay magaalada Columbus Ohio gudoomiyaha ugu ahaa walaalkay Cabdinuur Cabdisalaan mandate-ku haystana waxay 2 sano in hadii ururku 2 sano uu gaaro ka bacdi doorasho la qabto doorashadaasna ay noqoto doorasho xalaal ah oo si cadaalad ku dhisan tahay u dhacda wuxuu ku aadanaa bishii May 28 bay ahayd in la qabto laakiin duruufo jira awadood ma suura gelinin waxayna duruuftu ay kaliftay inay nagu soo gaarto November 25 inuu shirkii uu dib u furmo qabsoomida inuu shirku qabsoomi waayo runtii waxaan hadda halkan ku soo koobi karaa maahan logisticadii oo runtii dhamaystir noo noqon kari weyday waqtiga oo runtii aanan diyaarin ururka sharcigiisii ka soo qaybgalayaal fara badan oo dib noogaga dhacay kala duwanaanshaha mararka qaarkood xilliyada fasaxyada la kala galayay Yurub iyo halkan oo dad badan oo aan jeclayn inay Yurub ka yimaadaan ay suurtagal u noqon weyday sidaas daraadeed Ilaahay wuxuu suurtageliyay bisha November 25 inuu qabsoomo sida aad in badan ka arkayseen warbaahinta qaban qaabad dheer baa loo galay shirkan dad fara badan oo ku marti qaadnay walow walaalaha qaarkood ka imaan laha Afrika ay cudurdaar bixiyeen oo runtii xaqi socdaalka uu dib ku noqday una kamid yahay professor Hirsi laba garre gudoomiyaha ururka Al-Sunnah wal Jamaa oo runtii martiqaadan ugu fidinay inuu nagala soo qayb galo uma aysan suurta gelin waqtigiisa munaasibka ah inuu ku yimaado walow aan rajaynayno insha Allah ta'ala inuu mar dhow soo gaaro magaalada Columbus sida aan akhbaartiisa ku hayno oo waqtigu hadda uu u soo fududaanayo hadii Ilaahay yiraahdo walaalayaal marka qaban qaabada shirki sidaas ayuu ku qabsoomay waxaan rabaa inaan wax yar dib ugu noqdo qaabka aan ugu talagalnay doorashada iyo ka qaybgalka shirkan inuu u dhaco shirkan waxaan ku invite gareynay oo aan ku marti qaadnay dhammaan caalamka meelaha ururkan taageerayaashiisu ay degan yihiin iyo khaasatan North America state-yadeeda delegation baan u qaybinay state walba number baan siinay sida kulay aad ku arki doontaan shaxda alla idin soo bandhigi doono insha Allah ta'ala musaadada qaarkood aad ku arki doontaan state walba delegation aan ugu talagalnay baan siinay inuu ka soo qayb galo si wanaagsan bayna uga soo qayb galeen delegationiskii ama dadkii wufuudaha oo aan ugu talagalnay inaanu siinay state-yadaas dadkii ka soo qayb galay shirka oo lagu daray state-kan Ohio dadkii delegation-ka ah laftigooda ka qayb galay iyo xubnihii golaha dhexe ee ururka SDSI wixii markaa ka joogay oo xaadir goobta ku ahaa ayaa la isku daray numberkiidina wuxuu noqday 59 xubnood 59 ka xubnood baan waxaan siinay codkii maadaama ay matalayaan dadkii ay ka yimaadeen iyo istiidiyadii iyo dalalkii ay ka yimaadeen maadaama ay matalayaan 59 ka xubnood baa codkii qaaday oo vote-ka maaragtay suubinaysay sida aan maaragtay ku arkayseen TV-yada iyo shaashadaha kulli aad ka wada fiirsanayseen natiijadiina kulli sida aad la socotaan bay ku dhamaatay maadaama aniga iyo walaalkay Liibaan oo runtii nin aad iyo aad u qiimo badan ururkana wax badan ka soo qabtay lana soo shaqeeyay muddadii 2 sano ahayd aan tartanka wada galaynay ma ahan ujeedadu tartanka haddaan wada galnay aniga Liibaan kani markaas ku guuleysan waayay inuu shaqadii ururka ama uu ka haray ama uu ka fariisanaya ma sida aan horeyna u ballan qaaday isna uu ballan qaaday waxay ahayd walaalkii kale oo shaqada markaas hoggaanka qabto inuu ku guuleysto waxaan rabaa marka inaan halkan uga mahad celiyo walaalkay Cabdinuur Cabdisalaan oo runtii aad wada ogtihiin wadna taqaadana inuu yahay nin aad iyo aad u dulqaad badan oo samir badan hawlkarna oo in badanna ururkan ka soo shaqeeyay min dhalkiisina uu noqday inuu ku simo teeramkiisi inuu gaarsiyo mar labaad iyadoo dadkii ay xiisa u qabaan ururkii inay dib uga soo qayb galaan oo ay shirki ay u yimaadaan waqtigii uu qabsoomi lahaa codsi waxaan rabaa inaan codsi u diro bahada ururkan dhisatay oo runtii aan isleeyahay sidii aan u filaynay ururkan inay gacan u siiyaan uma aysan siinin
sida aad ogtihiin duruufaha walaalayaal maanta hor yaalla oo deegaamada ururkani uu ka taliyo hoostaga ama ururkan taageerayaashiisu ay ku nool yihiin ay joogaan waxaad ogtihiin inay si weyn ugaga dambeeyaan deegaamada kaleeto sababta ay ugaga dambeeyaanna maahan inaysan awood lahayn ama aysan waxba qabsan karinin laakiin waxa weeye inaysan taageero aysan siinin ururkii oo aysan gacan wanaagsan aysan siinin maxaa yeelay ururku garbaha kaliya uu ku duulayo ama waxa kaliya uu ku shaqaysanayo ama budgetka kaliya oo uu ama wax ku hawlgelinayo ama uu ku maalgelinayo waxa weeye waxa jeebkiina ku jira way ma wax naga jeebkiina ku jira wixii aanu contribution kale iyo meelo kale yeela kala ka helno waa goonideeda laakiin wax loo yaltiga ama la rabo in lagu istaago oo la rabo in idinku aad bishaan marka horeeto waxa weeye waxa jeebkiina ku jira inaad bixisaan way hadii inaan bixin waxa jeebkiina ku jirana suurtagal ma noqonayso in way hawshaan sii socoto aniguna wax badan ma qaban doono walaalkay Cabdinuurna ma dhaami doono meeshii uu ku furay baan ku furi doonaa teeramkayga hadii la gaaro hadii laakiin aad wax ka bedeshaan oo aad waqtigaas ugu talagalnay ururkaasi muddada 2 sano inaad gelisaan haddii ilaahay idmo haddii aad gelisaan waxaan rajaynayaa in wax badan ay noo qabsoomi doonaan wanaag fara badanna aanu ka dhaxli doono annaguna waxaan ku siisimaynaa jiilka kaleeto iyo groupka kaleeto oo walaalaha iyo oo naga dambeeya waxaan sidaas la mid ah ka codsanayaa qaybaha kala duwan ee bulshada khaasatan gabdhaha iyo dadka dhalinyarada oo waliba ardada aqoon-yahanada ah oo jaamacadaha iyo waxbarashada ku jira haddii aysan ururkan shalayto aysan gacan iyo taakulayn aysan siin walaalayaal waxaan idin leeyahay ururkan waa kiini shakhsi malahan cid shakhsi oo kale oo haba yaraatay iskala mal idinka iskale sidaas la mid ah waxaan codsanayaa dadka walaalaha oo ka caada dhigtay mar walbaaba inay cileeyaan wax kasta oo wanaagsan iyagoo qabiil ku tilmaamaya iyagoo gobol ku tilmaamaya iyagoo group ku tilmaamaya waxaan idin leeyahay war walaalayaal waxaas waxba idin ma tarayso waxna idin siyaadin mayso intaad group iyo gobol iyo qabiil aad ku haysaan baadna ka haraysaan ummadda inteeda kaleeto isku daya qof kasta oo yimaada inaad timekiina wax un ka siisaan inaad la negotiate garaysaan inaad la hadashaan inaad xataa khaladka uu leeyahay aad qofka u sheegtaan inaad wixii dhaliil aad qofka siisaan inaad wixii la saxdaan laakiin dhaliisha aad qabto haddaad gurigaaga la gasho te qofkii ma socon karo maxaa yeelay dhaliishiisa qofku isma oga haddii xataa uu dhaliilan yahay haddii uusan dhaliilaynna waxay noqonaysaa inay culaab ku noqoto aamusnaantaada iyo sida aad ugaga aamustatay sidaas daraadeed waxaan mar labaad idinka codsanayaa ugu dambeyn idinka codsanayaa walaalayaal inaad gacantiina aad fidisaan gacanta iyo jeebka aad isbartaan codka wanaagsanna aad banaanka u soo saartaan wixii xumaan ahna aad iska reebtaan waa maasantiin aad iyo aad baan mar labaad ugu mahad celinayaa bahda warbaahinta